Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Saaxiibayaal dhammaantiin waad salaamantiin meel kastoo aad joogtaan. Halkani waa kanaalka Right Clicksom. Magacaygu waa Master Click. Channelkani waxaan ku soo gudbiyaa muuqaalo ku saabsan technology iyo isticmaalka aaladii ugu dambeeyay. Sida aad ciwaanka sare ku soo aragteen, waxaan doonayaa inaan muuqaalkan idinkula wadaago sida loo samaysto sawir aad u qurux badan oo aad ka dhigan karto profile picture-kaaga Facebook, WhatsApp iyo Instagram. Haddaba saddex qaab oo looga dhigan karo sawirkaaga sidan ayaa jirto. Waxaan muuqaalkan idinku tusayaa habka ugu fudud. Sida caadiga ahayd, waxaan idin xasuusinayaa inaad muuqaalka like saartaan si dad badan uu u gaaro. Sidoo kale ha ilaawin inaad kanaalka subscribe saarto haddii aad ku cusub tahay. Sidoo kale gambaleelka furo si muuqaal kasta aan soo dhigno uu kugu soo dhaco. Audio Jungle. Ugu horreyn waxaa la soo degaysaa application-kan oo lagu magacaabo TuneMe. Application-kan waxaad ka helaysaa linkigiisa dhanka description-ka ee muuqaalkan aad daawanayso. Sidoo kale waxaad ka heli kartaa Play Store. Waana application-kan naga caawin doono inaan ka dhigno sawirkeena mid aad u qurux badan, kaasoo aan ka saaran karno sawirka WhatsApp, Facebook iyo Instagram. Haddaba Play Store ayaa soo furanaysaa, qaybtan search-ka ayaad ku qoraysaa TuneMe. Waxaana ku soo bixi doona sida tan, waxaa ku dhufanaysaa suggestion-ka ugu horeeyo ee ku soo baxo. Application-ka sida tan ayuu egyahay. Waa application-ka naga caawinayo inaan sawirkeena aan ka dhigano mid qurux badan. Application-kan waa safe, wax dhibaato uu leeyahay ma jiro. Marka application-kan ayaad soo dejisanaysaa. Asxaabta u baahan in application-ka soo dejistaan marka aad muuqaalka dhammaysato, waxaad raacdaa linkiga yaallo dhanka description-ka. Halkaas ayaad ka soo raacaysaa si automatic ah ayaad kula soo degaysaa application-kan. Haddaba application-ka ayaan soo furanaynaa sifo aan sawirka aan u habeeno. Marka aad application-ka soo furato sida tan ayaa ku soo baxayso. Waxaad iska xiraysaa bahashan waxaadna taabanaysaa meesha calaamadda X-ta ah. Kadib sida tan ayaa ku soo baxayso. Waxaad dooranaysaa qaybta dhexe oo ah Tune Effect. Halkaas ayaad dooranaysaa. Wuxuu ku soo qabanayaa sida tan. Application-kan waxaa isticmaali karo rag iyo dumarba oo isticmaali karaan in ay ku samaystaan sawirkooda. Haddaba qaybta haddii aad tahay rag waxaa isticmaalaysaa qaybta ragga lagu talagalay, haddii aad tahay dumar waxaa isticmaalaysaa qaybta dumarka. Hadda sawirka aan rabo inaan hagaajiyo waxaan isticmaali doonaa qaybtan ragga. Waxaan ku dhufanaynaa meeshan sawirkan aan taabanay hadda meeshan ayaa ku dhufanaysaa haddii aad tahay ragga. Haddii aad tahay dumarna qaybta kale ayaad dooranaysaa, qayb badan ayaa jiro, qaybahaas ayaad dooranaysaa. Sida halkan ka muuqato waxaad aragtaa sawirka markiisii hore inuu saa ahaa, kadib sidan loo bedelay. Ani hadda waxaan rabaa inaan sawirkan habeeyo oo ah suldaanka geeska. Haye aan habeena ma xumo waxaa la rabaa inaad iska saxdo ratio. Waxaana dooranaysaa box-ka dhexe. Kadib waxaad sii dooranaysaa falaadha cagaarka ayaa taabanaysaa oo ah edit photo. Markaad ku dhufato wuxuu ku soo qaban doonaa xayisiis. Xayisiinta markuu ku soo qabto 5 ilbiriqsi kadib waxaa ku soo bixi doonto calaamadda X. X ayaa iska saaraysaa. Si automatic ah sawirka ayuu ku soo hagaajinayaa ilbiriqsi gudaheed. Marka sawirka aad rabto ayaad ka xulanaysaa, marka kaas ayaad hore u sii wadanaysaa. Sawirka aad jeclaato ayaad ka qaadan kartaa. Halkani waxaan ku aragnaa sawirro yaryar oo bilaa gar ah. Hadda aniga sawirkan dhaxa cadiinka ayaan iska qaadanayaa, kan ayaana iska isticmaalaynaa. Kadib wuxuu ku soo qaban doonaa xayisiis. Halkaana waxaa kuu qor almost dhan waa process-ka wuu dhamaaday. Kadib haddii aad rabtid inaad wax ku sii dartid sida sawirka mise aad si qurxisid, waxaad taabanaysaa add an effects. Haddaad rabto waa qurxinaysaa, laakiin aniga sida tan ayaan ku daynayaa. Kadib haddaad rabto magaca inaad ku dartid waxaad taabanaysaa add your text. Magaca aad rabto in aad ku darto ayaad halkan ku qoraysaa. Kadib waxaad taabanaysaa calaamadda kore ee tigta ah. qoraalka meesha aad rabto ayaad dhigan kartaa, laakiin meeshan u hoose ayaa badanaa la dhigaa oo ugu fiican. farta haddaad rabto inaad iska haweysid meeshan
eeda ay ku qoran tahay ayaad taabanaysaa kadib farta aad rabta ayaad isticmaalaysaa farar badan oo kala duwan ayaa ku jiro fontis ayaa la dhahaa marka fontiskan midkaa rabto ayaa dooranaysaa midda ugu fiican ayaa dooranaysaa kadib fonti kala halkaas waxaa ku dhufanaysaa kalarka ah waadna iska bedelaysaa kalarka rabta ayaa kala dhigi kartaa black red iyo green waxa rabta ayaa kala dhigi kartaa halkan marka badanaa waxaa la isticmaalaa balaaga ayaa la isticmaalaa oo ah kalarka madow marka far kusoo baxayso ayaan ka dhigayaa fontiska isma dhaamaan oo kulligood waa isku eg yihiin marka aniga waxaan isticmaali doonaa fontiskan tan ma fiicno marka waxaan iska isticmaali doonaa midda ugu fiican idinkana midkaa rabtaan ayaad kala bixi kartaan oo aad isticmaali kartaan marka middan ugu dambeyso aan isticmaalayaa ay ugu horeyso tan ayaa iska yar fiican marka aad dhamayso waxaad ku dhufanaysaa meesha tigta ah kadib haddaad rabto inaad la soo degto oo aad sawirka gudaha soo gashatid waxaad taabanaysaa calaamadda sheerta ah halkaas ayaad taabanaysaa markaad soo qabato halkan geeska ah ee download ku qoranta ayaad taabanaysaa kadib wuxuu si automatic ah kugu soo geli doonaa galarigaaga halkaas ayaad sawirka ka heli kartaa waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalka oo ay tahay markii koowaad oo daawanaysa muuqaaladeena ha ilaaweyn inaad kanaalka subscribe saarto sidoo kale muuqaalka like siiso gambalalkana furo